الخطا أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa Adnan Maxamed Cali agaasimaha ururka TBG. maanta taariikhdu tahay 11 bishii 7 2021 waxaanu la joognaa isla markaana aan booqasho ugu nimi walaashayo Amaal Ibrahim Cabdullaahi oo ah gabadhaad wada aragtaan waa gabadh araga naafaka isla markaana gabadh yar oo ah baaralays waxa u dheer xaalad baaralaysnimo saaka 8 subaxnimo ayuu beeheed markii xaaladeeda nololeed laga soo deeriyay Amaal Ibrahim Cabdullaahi isla daqiiqadiiba saacad gudaheed ururka TBG maadaama uu u taagan yahay gacan qabashada iyo وهيلنت iyo wuxuu qabashada dadka aragala dumarka iyo caruurta araga naafada ka ah isla markaana uu taagan yahay sidii codkooda meel dheer u gaarsiin lahaa waxaan walaalaha TBG hadaanu nahay saacad gudaheed kaga soo jawaabnay dalabkii Amaal waxaanu soo gaarsiinay deeq raashin oo noo soo wakiisheen walaalaha iyagii dalka Sweden oo mar walba xaalad walba iyo xilli kasta na garab taagan hadaanu nahay ururka TAF Balangeeralis deeqda raashinina waxay ka kooban tahay laba shubo bariis laba shubo daqiiqa laba shubo oo sonkora kartoon timira kartoon baasta saddexley saliida daasad caana iyo waliba 300 soo xafaayada waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha iyaga dalka Sweden oo iyagu xaalad kasta iyo xilli kastaba barbar taagan oo aan oran karnaba waxa weeyaan maskaxdayada iyo wadnaha iyaga iyo dhabarkayga iyo halkaan ka dhaqaaqaynaba maadaama oo saacad gudahood dalabkayga kaga soo jawaabeen haddaba xaaladda Amaal Ibrahim Cabdullaahi ee maanta ay ku sugan tahay maalinkan maanta ah waxa inooga warbixinaysaa Caashi Ibrahim Cabdullaahi oo ah walaasha Amaal maadaama oo Amaal hooyadeed nooleen waqtigan xaadirka ah. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalahayaga markiiba ka soo jawaabay baahidii aan sheeganay. Amaal walaasheedaan ahay aabaheed waa dhulyaal aniguna ana u shaqayn jiray oo ordi jiray anigina waan xanuunsado macaan iyo xanuuno fara badan baa laygu sheegay sida la ajligeedina ka waan fadhiyaa shalay markii aan la hadlay inanta waxaan ilaahay uga mahad celinayaa markiiba sida jawaabtiina loogu soo jawaabay marka walaalahayga muslimiinta waxaan weydiisanayaa adoonta yaraan ilaahay mooye aadama kala haysan inay wixii ay tari karaan igu soo taraan waan gartay hooyo waxaad hadalkaaga ku jiray inaad adigu reerka u shaqayn jirtay qoyskiina oo ka kooban 13 qof ka kooban adigu u shaqayn jirtay oo adigu ahayd xooga kaliya ay reerkaasi ku dhaqaaqaan adigina waxaad sheegtay in xanuun kula soo darseen oo aad fadhiisatay halkeed ka heshaan qutul daruuriga wallahi intii aad idinku noo bilowdeen caawimada raashinka ilaa bishii koobaad ee sanadka daablaha ururku baa noo keenayay biyaha iyo dhuxusha iyo khudradana ilaaha boqorka uu nasiiya meel alla noogu daraba marka sidaas aan waayin in ilaahay wax ma waayo waxaad markaa warbixinta naga siisaa bal xaaladda nololeed ee Amaal Ibrahim Cabdullaahi xaaladda ay ku sugan tahay iyadu inaad aad warbixin naga siiso cuntada maxay qaadataa sidee halka caafimaadkeeda kale xanuuna u dheer xanuunkan miyuu jiraa xanuun ma dheeraadee laxaadka ilaahay ka fariisiyay ordodoobantay mooyaane gaaskari wax la yiraahdo u dheer iyo gardilaan yidi farmasiga caloosha dhakhtarka yiri caloosha ku leedahay labada xanuun baa u dheer jiifka ay jiifta xaaladeedana waa arkaysaan waxba idin kama qarsoona ma idin garan ilaahay mahadi weeyaan qadarkana lama diido xaaladeedana waa arkaysaan ilaahay idinkana miisaanka xasanaadka idin ku daro muslimiinta meel walay joogaanna waxaan ka codsanayaa inay imaha wixii ay soo tari karayaan ugu soo taraan hooyo ugu dambeyntii maxay tahay baahida ugu weyn ee waqtigan aad jeclaan lahayd in laga caawiyo ama fariinta aad leedahay Amaal halka iyo halkaas igu darnaa lagu caawiyo maxay tahay xagga hooyga haday tahay xagga nolosheeda kala haday tahay fariinta ugu muhiimsan ee dir lahayd badda Soomaaliyeed horta hooyga waa arkaysana waba kharaabadaas marka roobdaayo waxaan siraada wiidi ku dumi mar alla marka roobdaayo waxaan siraada wiidi ku dumi oo wiidi ka arkayo hooygan ku jira 14 qofna waanu nahay 11 aan dhalay iyo anigii odayga iyo iyada 14 ka qof baan baahi amal la'aan ka xun miyay jirtaa hooyo baahi amal la'aan ka xun
inaanay jirin baan u malaynaya qof farihiisa waxba kula soo baxay quruskii ilaahay qoray waa qoran yahay laakiin qof aan meel la wajahaynin dabadiisana aanay waxba oolin bahay ka xun inaanay jirin baan u malaynaya waayahay daawadayaal waxaan filayaa muuqaalka inaad si fiican uga wada dharagteen Amaal iyadoo ah gabadh aragga naafaka isla markaana baaralaytiga waxa u dheer inaanay Amaal haysanin noloshii asaasiga ahayd haddii biyo tahay iyo haddii baad tahayba Amaal waxay ku tiirsanayd nolosha walaasheed oo ah qofka sida gaarka u xanaaniya maadaama aanay Amaal hooyo lahayn aabaheedna markiisa horeba u liitay xanuun soo wajahay haddaba waad wada arkaysaan walaalayaal Amaal xaaladeedu inay aad iyo aad u adag tahay maadaama idin wada aragteen walaalayaal xaaladda Amaal waxaan idin ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inaad xaaladda Amaal nagu gacan siisaan 7 bilood ee sanadka 2022 ka urur TBG ahaan ayuun baa gacanta ku hayay xaaladda Amaal maadaama ay walaasheed inoo sheegtay inaanay hadda wax shaqo ahaynin xaaladeeda caafimaad oo u saamixi weyday awgeed inay nolol maalmeedkeeda u soo dhiciso maadaama ay Caashe Ibraahin Cabdilaahi ahayd qofka kaliya ee sida gaarka ah ugu hayay xaaladda Amaal gacanta waxaan ka codsanaynaa walaalaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay nagu caawiyaan isla markaana ay markasta iyo mar walba walaalaha Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sweden oo ah iyagu ijiinka markastaba haday saacad tahay iyo hadii kalaba xaalad kasta iyo xilli kastaba nagu garab taagan sidaan horeba u sheegay muuqaalka xigeentan iskugu iman doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh